wiilkan wuxuu go'aansadaa inuu ka fogaado gabadha uu jecel yahay. Sababtu waa inuu qabo leukemia, wuxuuna doonayaa inuusan ka hor istaagin inay nolosheeda si caadi ah u sii wado. Wuu jeclaan lahaa inuu sii joogto, balse ma hayo ikhtiyaar kale, wuxuuna qasab ku noqday inuu arrintan sameeyo si aysan gabadhu uga shakiyin. Marka hore wuxuu la xidhiidhaa gabadh uu isku fasal ahaan jireen dugsigii sare, wuxuuna ka codsadaa inay iska dhigto gabadhiisa cusub. Kadibna wuxuu kiristaa sawir qaade qarsoodi uga qaada sawirro isaga iyo gabadhaas. Wuxuu u adeegsanayaa sawirradaas inuu ku sababeeyo kala tegiisa. Anna sawir qaadaha ayaa hubiya in Anna ay aragto sawirrada. Markaas Anna waxay u timaadaa guriga Jack si ay u maqasho sharaxaadiisa. Laakiin markii ay albaabka soo gaadho, waxay aragtaa gabar la hadlaysa hooyada Jack. Anna waxay ku dhuumataa geeska guriga oo cod la'aan bay u istaagtaa. Gabadhii ayaa arkaysa Anna oo dhuumanaysa, markaasay bilaabataa inay been ka sheegto xiriir jacayl oo iyada iyo Jack ka dhexeeya. Waxay xoogga saaraysaa inay iyaga isku jireen dugsigii sare, oo hadda ay soo ceshanayso waxa iyadeeda ahaa, waxayna ku amartaa Anna inay Jack ka fogaato. Maalinta xigta, Jack wuxuu helaa Anna. Si qabow ayuu ugu yidhaahdaa inay kala tegayaan. Anna markiiba ilmaynaysa ayay su'aal ku celisaa haddii uu dhab u yahay. Jack wuxuu yidhaahdaa wuxuu dareen u qaaday qof kale. Kadibna wuu istaagaa oo isaga taga. Anna mar kale ayay eegtaa sawirka Jack, waxayna indhaha ku dhacaan jaakada uu Jack xiran yahay. Xusuustii hore ayaa markaas ku soo booday. Waxay isugu horreeyeen inay kulmaan sannado ka hor. Anna waxay taagnayd safka dukaanka bubleteega. Waxay labadooduba dalbadeen casiir watermelon ah, laakiin hal koob oo keliya ayaa haray. Jack ayaa u daayay in iyadu qaadato casiirka. Markay taas xasuusato, Anna waxay si degdeg ah u rabtaa inay hesho Jack. Laakiin markay gurigiisa u socoto, way isku dhaafaan. Jack wuxuu ku jira gaari isaga oo u ambabaxaya garoonka diyaaradaha maadaama uu dhoofayo daaweyn. Anna aad bay u niyad jabtaa markii aysan helin. Waxay dib ugu noqotaa dukaankii bubleteega ee ay markii ugu horreysay ku kulmeen. Waxay fadhiisataa isla kursigii ay hore u fadhiisteen. Waxay qabatin laan u dirtaa fariin Jacka. Jack wuxuu fariinta ka arkaa gaariga dhexdiisa. Weli wuxuu rabaa inuu mar uun Anna arko, sidaas darteed wuxuu ka codsadaa darawalkii inuu joojiyo gaariga, wuxuuna u ordaa dukaanka. Anna iyadoo fikir ku maqan ayay markay jeesato aragtaa Jack oo bannaanka taagan. Waxay ku noqotaa amakaag iyo farxad isku mar. Jack wuxuu u sheegaa Anna in halkani ahaa markii ugu horreysay ee uu arkay oo uu jacaylkeeda ku dhacay. Anna waxay weydiisaa haddaba sababta uu furay. Jack weli ma awoodo inuu ka dhahayo inuu xanuunsan yahay. Wuu ka xishoodaa, wuxuuna been ugu sheegaa inuu dibadda u aadayo waxbarasho. Anna ma awoodo inay ka tagto. Jack markaas wuxuu u wacaa hooyadii, wuxuuna ka codsadaa inay siiso 2 maalmood oo kale. Wuxuu rabaa inuu Anna la qaato waqti fiican maalmihiisa ugu dambeeya. 2 maalmood kadib, Jack mar kale ayuu u dhoofaa dalka dibaddiisa. Maalmihiisii u dambeeyey weli wuu la xiriirayaa Anna fariimo ahaan. Anna waxay go'aansataa inay samayso riwaayad concert maalinta Kirismaska, iyadoo u adeegsanaysa fursad ay Jack ugu soo bandhigto inay doonayso guur. Waxay Jack u dirtaa martiqaad Kirismaska. Wuxuu soo gaaraa si dhaqso ah, balse Jack muu iman. Saaxiibadeed waxay ku yidhaahdaan waxaa laga yaabaa inuu dib u dhacay. Laakiin xitaa markay riwaayadu dhammaato, weli wax raad ah oo Jack ah ma jiro. Markaas ayay hooyada Jack soo gashaa howlka. Waxay u sheegtaa Anna in Jack uusan mar dambe soo noqon doonin sababtoo ah wuxuu qabay xanuun uu dhiman doono. Anna way naxdaa. Waxay tidhaahdaa arrintaasi ma aha mid run noqon karta sababtoo ah Jack wuxuu u dirayay fariimo maalmihii u dambeeyey xitaa nus saac. Hooyada Jack waxay soo saartaa telefoonkeeda, waxayna leedahay fariimaha oo dhan iyadaa diraysay. Anna hal mar ayay la kulantaa xanuun aad u culus oo qalbiga gooya.